بسم الله الرحمن الرحيم. maanta waxaan halkan ka guud galaynaa shirkeennii ku saabsanaa certified ethical hacking oo qaybtiisa labaad waxaana la yidhaahdaa proxy chain configuration. waxaanu tegi doonaa sharaxaadiisa oo dhammaystiran insha allah no etc/proxy config taagan tahay. hadda waxaan soo galnay proxy chain configurationkiisa. kow calaamadaas waxay ka badaysaa hashtagga waxay ka mid tahay configurationka proxy chain oo waa calaamad configurationka common u ah oo gaar u ah hashtagga oo common waana configuration filekii proxy chain. versionkiisa waxaa waaye version 3.1 sidaad u arkaysa 3.1 versionka proxy chain. waxaan aragnay http socket 4 socket 5 linekana waa line aada u muhiim ah. This is a very important line. markaan fiirinay http maxay la xiriirtaa iyada. http waa very family, waa qoys ka tirsan tor. calaamada la yihahdo tor u imaan doonaa tor family waa browserka tor la yihahdo ayuu la shaqeeyaa ama tor sida Soomaaliya baalka loo yaqaano. waana tegi doonaa waa tor family waana isticmaalaa anonymous. marka tor family browserka ayay la shaqeysaa http. socket 4 waxay la xiriirtaa anonymous. waanu tegi doonaa haddii ilaahay ma dhihin waana anonymous. socket 5 waxaan anaga maamulno waa what we can recommended waa waxaan recommended waxaan anaga amrayno waa socket 5. laakiin socket 4 waxay la xiriirtaa waxaa compatible ay ku tahay barnaamijka aan hadda sharaxayno. socket 5na oo mirta anaga aan siinayno sidii isu bedelaan. marka linkan wixii soo gala http socket 4 socket 5 waa aad u muhiim tahay iyo DNS-ka. waanu tegi doonaa markaan hoos aadno inagoo fallaarta hoose riixayno arrow down sida u taqaana. dynamic waa very important. waa markii proxy chain la joogo wuxuu yahay very important. meel kastoo la joogana waa very important, laakiin markii loo fiiriyo halkan ayuu aad ugu muhiimsan yahay. TCP waxay ku jirtaa proxy chain-ku ka mid yahay waayo TCP wuxuu la shaqeeyaa waa transmission control protocol. wuxuu la shaqeyn doonaa proxy chain. socket 5 marka hadda waa keenaa markii saarka loo fiiriyo socket 5 lagu leeyahay waa IP addresskii aad isticmaalaysay portigii iyo usernamekii oo meeshan lama ay ku qoranta secret meesha kalena ay isku warday waa passwordkii saasoo kale ay kula mantay waa IP addresska soo galaysay socket 5 oo iskala. laakiin se laguma dhihin socket 4 wax laguma siin username iyo password. waayo tagi doonaa socket 4 waan fiirinaynaa proxy list waa default set tor waxay default ku tahay tor sida arki doontaan sida aragtaan. socket 4 haddii browser IP address-kan waxa iskale wuxuu compatible ku yahay soo kacayaa markii la soo kaciyo wuxuu compatible tor compatible ku yahay. haddii aan hadda u diro browser oo soo kicinaya toos uu keenayaa. laakiin socket 5 wuxuu ku shaqeeyaa waa recommendation. waxa anaga awaamirta anaga siinay uu qaadanaya wixii anaga ka bedelay wax uu leeyahay. hadda markaan soo gasho socket 5 socket 4 ayuu leeyahay proxy chain-kan. laakiin socket 5 kana iskale waana ku shaqeynaya waa amarkii ku shaqeynaya. laakiin socket 4 anonymous waxa amra programka
أمر كشقينا برنامج عندي دونا نصف كري ورميدا كنترول أو سيف رميدا سيفة وتاجن وعندي دونا أنكبحنا أو كنترول كان كنترول أو يونيت أنكبحنا كنترول إكس أو إكسيد وتاجن وعندي دونا وأنا etc proxygen.config oo configuration key hadda waxaan leenahay waa clear graynaa waa iska tirtiraya uma baahni waxaan aadi doonaa tor walaan isla fiirino tor maxay tahay waa haddaan soo kicinaynaa tor haddii inoo qaynaya waa fiirinaynaa tor horta marka inuu kacsanaan kala fiirinaa service tor status ilaa hadduu kacsan yahay wuu sheegi doonaa status wuu jiray أو يكعسنا هرو كعسنا تور وحنلاقي مركة تور يستاجي والسيرفيس تور ستوب هذا يضع نستاجينا ونجوجينا في المركة سيرفيس سيدو كسو بيح دونا تور إلا أول سيدا مستوى موجودة علامة الكورية ذلك يسال إنه أكتف هي أو إكسيستد وهي بثوري سجري كوسو قرية وضعتها أو شغليس أنا نمايزين كينو وشغينا وتاغيها مرولو وباللي مركان فيرن سيرفيس تو ستاتوس كيسان فيرن مركان ستاتوس أي عصبين التطابق عكوسو بحيشو تو ينس علامة الضغط في اسمهن وعلامة الله يسمهن اكتفهن وكلها هي عالم اكتف اني تهي يكون مغطوع علامة الهين يكون مغنين حاسبين اسبوع اني تاغن تهي توس تشغينين مايزين كا ذلك الانسان عكوسو مهنين مركان وديوان سوق احسنين كنا نوصل كعي في ستات هذا أنا كعسية ما قلت رأيي غير أنا كم بهنين عارفين دونا ديلا ما يلهم بروكسجين كعندنا يصير DNS وش قين دونا هنملينا يا شو تجي عندي والله هذه أنا أكيد دونا بروكسجين دي بنقول لعبنا نانو بروكس نانو ETC بروكس سيدا ماشي وقت جيران أن أرقنا بروكسجين DNS.com فيك كونف أنا كده أنا برا سؤالنا أنا أرو دانك حينينا DNS ليك مركب قبط أرنوا كنا عاود دونا DNS ليك requested not leak كل يوم وقتها proxy DNS كان requested not leak DNS data marka ayada dhow leak lagu sameeyo inuu tag doona DNS leak hada no leak كل yahay oo sameeyay kana marka kala joogo waxa tag doona ayada leak lagu sameeyo doona hadii la ma yeelin prox janis.com هاللغة بروكسي جينيس waxaan u calaynaa browser kan u baahan inaan tagno ilaa waxaan rabaa browser kan rabaa inaan soo kicino waxaan ugu qoran Firefox browser kaasna inaan soo kicino rabno anagoo hadaan rabno Google wacayno ilaa dacalaha mid kamid ah wacanayno in website ka rabno inaan ka dhex booqano iyo sidoo soo kici doono website ka rabno waxaan ugu calaynaa halkan Firefox ilaa browser kan isticmaali doonaa Firefox browser ka هذا وحنا هذينا دومين بالكي إن وعنو دومين نمكي
www keegaasana ama google baan kacsanaa bbc aan iska dhahayaa wax weyn maahan uma baahni waxaan rabaa qoran karaa .com inuu soo ka carara waxay iga soo diiday waa proxy waxay iga soo diiday proxy tennis Firefox .google.com asla fiiran marka hadda marka shaqada diri doonaa waxaan ugu leeyahay proxygen/sf.net hadda la rabaa marka inuu soo kiciyo waxaynu noo keenaa halkaan ka ogaan doonaa hadda waxaan naga diidayaa leega waxaan ku baran doonaa hadduu yiraahdo berri insha allah haddii aan nafta xun waayin halkaan haynoo joogo cashirkeenii ku saabsanaa proxy jane qaybtiisa labaadna berri ayaan gudbaynaa waxaan arkaynaa markasta oon website kasta oon booqdo waxaa imaan doona IP addresskiisa markasta oon dhagsiiyo oon refreshment ku sameeyo ama refresh dhaho waxaa ii bedelmi doona passwordka baalkay IP addresska link marka DNS linkgaas berri ayaan u tegi doonaa insha allah hadii la maydin marka intaana noogu ekaa cashirkeena